wafdigan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriyo oo kamid ahay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo Galmudug ka soo jeeda ayaa maanta gaaray degmada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug waxaana diyaaradda wadda ay ka caga dhigatay gagida caalamiga ee Gaasnuur ee degmada Dhuusamareeb kadib soo dhaweyn balaaran oo lagu sameeyay gagida diyaaradaha ayuu la hadlay wasiirka warbaahinta waxaana uu sheegay inuu u yimid arrimo dhowr ah deegaanada dawlad goboleedka Galmudug oo ay kamid yihiin inaan halkaan soo booqano maanta marna mas'uuliyad federaal ah marna mas'uuliyad deegaan ah waxaan jecelnahay inaan joogno meeshaan intaan ka howla dhameysano hadii la yiraahdo arrimaha aan u nimidna kolla waa mar kale wadaagi doona hadii la yiraahdo guud ahaan waa danaha iyo howlaha ka jira dawlad goboleedka Galmudug oo ay magaalada madaxda u tahay Dhuusamareeb waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wasiirka iyo khiyaarta kale oo dawlad goboleedka kamidka ah oo halkaan ugu soo dhaweeyay dhaqanka iyo ciidanka iyo khiyaarta iyo miidiyada inta meeshaan maanta noogu timid oo lagu soo marxabaysay oo dhani waa mahadsan yihiin khayr iyo guulan u rajaynaynaa Galmudug insha Allah arrimahan u nimidna waa dhaxgali doonaa wixii jirana waad ogaan doontaan hadii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib goobta waxa ka hadlay xildhibaan Gaafo Maxamuud iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdi Kaafi Qaaf waxayna ay guud ahaantooda ka yiraahdeen goobta wasiirka oo mahad celinayna xildhibaanada shacabka reer Dhuusamareeb sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ujeedada aan ka hadlayna wasiirka ayaa ka hadlay kulli aan ujeedadna waxay tahay arrin federal hadaareed iyo dadkii deegaanka laga doortaan qofkii ugu dambeeyay halka laga doortanaha inaan ku soo noqdana waajib ay ugu tahay marka waa rajaynaynaa inaan kulligeen aan wada faa'iido gaarno aan ka baxno dhibaatada iyo mushkiladda haysato aad iyo aad aan idinku soo dhaweysteen aan kaaga mahad celinaynaa waa mahadsantihiin waxaynu joognaa Dhuusamareeb garoonka Dhuusamareeb waxaynu soo dhaweynaynaa maanta oo bisha Juun ay tahay 22 wasiirka arrimaha gudaha federaalka wasiir dawlaha arrimaha gudaha xildhibaanada ka tirsan dawladda federaalka ayaynu halkan ku soo dhaweynaynaa waxaan filayaa inay Galmudug u yimaadeen arrimo wada tashi ah sidii caadada ahaydba markii ugu horeysay maahna wasiirka arrimaha gudaha halkan yimaado waxaan filayaa bishii hore ayuu yimid bilowgeedii haddana waa nagu soo noqdeen isaga iyo waftigiisu gacmo furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa ayagana waxaan filaynaa muddada ay joogaan inay maxaa la yiraahdaa arrimihii ay halkan ugu socdeen ilaahay inuu la hirgelin doono wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulamo la leh madaxda dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ku sugan magaalada Dhuusamareeb waxaana la eegayaa natiijada ka soo baxda kulamadooda saacadaha soo socda xilliga maanta uu yimid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriyo ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay saacadihii ugu dambeysay xaaladda siyaasadeed ee dawlad goboleedka Galmudug ay aad u sabaynaysay isbedel xoogan oo hadalhayn badan watana laga dareemayay deegaanada Galmudug waxaana maanta wafdiye kala duwan ay ka kala degeen magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb xilli subaxnimada hore saaka oo warqad soo saaray madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo ku sheegay in deegaanada Galmudug ay siyaaraduhu keeni kareen madax ka socota dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb